ninkani wuxuu isku dayayaa inuu xanjo kaga dhigtay kabtiisa iska gooyo, balse rakaabkii diyaaradda ayaa si khaldan u fahmay dhaqdhaqaaqiisa. Waxay u qaateen inuu wado bambo kabaha lagu qariyo, taasoo dhalisay argagax iyo fowdo degdeg ah. Dadkii oo qaylinaya ayaa u qaatay inuu hub wato, ugu dambayntiina askari ayaa ninkii dhulka ku nabay si uu u xakameeyo, inkasta oo katiinada lagu xiray, haddana ninkani wuxuu qabaa kalsooni xad dhaaf ah, isagoo aaminsan inaan waxba celin karin. Wuxuu go'aansaday inuu musqusha galo si uu u isticmaalo qalabkiisa qarsoon ee basaasnimo. Markii uu gudaha galay, wuxuu isku dayay inuu furto qalab casri ah oo kabtiisa ku dhex jira. Balse arrintu si khaldan ayay u dhacday markii uu si kama ah gacmihiisa isugu xiray xarig caag ah, isagoo adeegsanaya qalabkiisa gaarka ah oo ciladoobay. Maadaama gacmihiisu xiran yihiin, wuxuu isku dayay inuu afka wax ku furfuro. Nasiib darro, wuxuu riday falaar yar oo bir ah, taasoo ku dhacday albaabka, kadibna dib ugu soo noqotay oo wejiga iyo sanka kaga dhacday, taasoo xanuun badan iyo rafaad ku reebtay. Isku daygiisii ugu dambeeyey ee ahaa inuu xariga iska gooyo wuxuu noqday masiibo. Falaartii waxay si toos ah ugu dhacday badhanka cas ee ejectorga, kaasoo furay qaybta hoose ee musqusha diyaaradda. Ninkii wuxuu si lama filaan ah uga dhacay hawada sare, isagoo u sii degaya dhulka.